عليكم ورحمة الله وبركاته خياري مالك السود دونيدا كجوكتان كسولو هذا برنامج كان دينيغا إن شاء الله تعالى هدي الله أود لي هذا أنو كو إيجي دونه رسالة النبي محمد صلى الله عليه وسلم إيا ميلها يسو مرتي وحن نوغتين وايهان دنبه إسلام كين مقعيه فولحون أو كلا دوان لوغو ييرو أيضا مررك قاركو دادك وحيالها إنو إسلامك لوغو ييرو أي مسلمين تو قاركو أي قعما أي جيستان أو قيد صبتاس لوغو سببايو haddana insha allahu tacaala waxaanu fiirinayaa risaalada dhabta ee nebi maxamed loola soo diray sala allahu caleyhi wasalam ilaahayna subxana wa tacaala qur-aankiisa waxa uu ku sheegay inuu ahaa raxmad uu maaragtay uu u saaxiib ahaa caalamka oo dhanna u ahaa haddaba waxaanu fiirinaynaa islaamku siduu dunida ugu fidayo maanta iyo haddii nebi maxamed dadka uu khasbi jiray siday hadalka u dhigeene oo dadka seef lagu islaamin jiray gabdhaha ingiriiska iyo kuwa maraykanka jooga iyo kuwa indhaha buluugu ay yihiin iyo kuwa madowga adduunka kale joogaba yaa khasbaya maanta inay soo islaamaan haddii uu geeriyooday 1300 sano ka hor 1400 sano ka hor aan idhaahdee haddaba insha allahu tacaala haddii ilaahay yidhaahdo waxaanu eegaynaa waxyaalahaas khadka taleefonka ayaanu idiin furaynaa waxaana barnaamijkan igala qeyb qaadanaya sheekh bashiir shiil oo aad si fiican u taqaanaan culammada ahlu xadiidka ee soomaalidu ay maaragtay sida weyn u qadariso and rightly so ku habboon maaragtay in barnaamijyadan oo kale la keeno si loogaga faa'iidaysto cilmigiisa isaga iyo culamada kale ee dunida daafeeda joogtay Soomaalida ee ahlu xadiidka ujeedada ahlu xadiidka ugu celinaya macna gooni ayuu sameeynaya waxaana garanaya dadka garanaya ujeedada looga dan leeyahay haddaba insha allahu tacaala bal aanu eegno maalmihii quruxda badnaa islaamka soo maray iyo ciriirigii uu soo maray iyo siduu dunida ugu fiday ayadoon xabadna dadka lagu musliminin sulkana laga goynin bal loo yeeray oo si qurux badan loogu yeeray si aanu u ogaano diinteenan iyo weliba masiirku meesha uu yahay iyo inaanu ku dhegna ayada insha allahu tacaala intaanu asaga kala kulmayno ama malakul mowdku noo imaanayo inay tahay dariiqa kaliya lagu badbaadi karo haddaba sheekh bashiir baan marka horeysa jecel inaan soo dhaweeyey oo xilligan isagoo safar kasoo galay isaga iyo jamaaco kale oo qolka kala fadhidaba aanu uga mahad celinayno juhdigooda iyo wanaagooda ummadda soomaaliyeed ugu gargaarayaan baaraka allahu fiik sheekh soo dhawo wafiikum albaraka jazaaka allahu khayran sheekh sawir guud haddaad naga siisid risaaladan bilowgeedii iyo ujeedadu ilaahay usoo diray ambiyada waa maxay بسم الله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار باللغة إسلامك أدي أينو افتيمنو إلهي سبحانه وتعالى قرآنك ينوغو الشيء الله أعلم حيث يجعل رسالته إلهي سبحانه وتعالى خلقي نسقى عبوري رسالة سي دينتي سميشو لغاني يسقى يقانا إلهي سبحانه وتعالى يسقى كدح دورتي أنبيدي سي رسوشي سإنتو عبوري حيالي إلهي إسقى يقانا ماشو يالي سيدو إنوت المعمي بقرآن كريم كاه عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه وأرضاه أيا وحورني كما في كتاب الحلية الإمام أبي نعيم ترجمة دي سمركو كهلي عبد الله بن مسعود وحيري إن الله نظر إلى قلوب العباد فاختار قلب محمد صلى الله عليه وآله وسلم إلهي وحو إيجي سبحانه وتعالى الدومة قلوب تودا وحو كردح دورتي قلبي النبي محمد صلوات الله والسلام عليه وحو نقولي بالرسالة ديسة ثم نظر إلى قلوب العباد مركل إلهي سبحانه وتعالى وحو ديبو إيجي الدومة ديسة قلوب تودا wuxuu ka dhex doortay asxaabtiisii nabiga calayhi salaatu wasalaam wuxuuna oga dhigay rag wasara u ah acwaanna u ah nabiga calayhi salaatu wasalaam u gargaara marka waxay ahaayeen jiil ilaahay doortay subxaanahu wa tacaala nabiguna waa inoo sheegay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh jiilka iyaga inay ahaayeen jiilkii u khayr badnaa quruun ay bini aadan noolaadaan qarniga u khayr badnaana inay noolaayeen waxaa ku xigay qarnigii ku xigay dadkii noolaa waxaa ku xigay qarnigii saddexaad dadkii noolaa saddexdaa qarni ayaana loo yaqaanaa salafu hadihi lumma waana dadkaa nabigu uu taskiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh xambaaritaanka marka alle subxaanahu wa tacaala uu risaaladiisa u dhiibay rasuulka salawaatu ullahi wasalaamu caleyh
waxaa ugu horeeyey sida aynu garanayno nebiga calayhi salaatu wasalaam isagoo ku sugan gaaru xira xadiid umina caaisha radi allahu tacala canha fi saxiixi albukhaari bad lwaxyi imaam albukhaari u baabeynayay ama kitaabka uu ku magacaabay kitaabu bad lwaxyi xadiidka umina caaisha ayaana ugu horeeya waxay odhanaysay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku sugnaan jiray gaaru xira waa kasoo laaban jiray xadiid dheer buu ahaa xataa jaa'ahu alxaq wa huwa fi gaari xira nebiga calayhi salaatu wasalaam ilaa waxyiga uu kusoo degay isagoo gaari xira ku sugan oo lagu yihi iqra qaala ma ana biqaari uma akhadanii yani xata balaga mini اljahd faarsalnii faqala iqra faqultu ma ana biqaari ila akhiri alxadiid nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu la soo laabtay shanta aayadood ama afarta aayadood ugu horeeya suuratu alcalaq iqra bismi rabika aladii khalaq halkaasayna ka bilaabatay risaaladii runta ahayd nebigu markuu gurigiisi kusoo laabtay salawaatu llahi wasalaamu caleyh isagoo aada u gelgelanayo u walwalayo qalbigiisu gelgelanayo ayuu gurigii khadiijo yimid radi allahu tacala canha isagoo odhanaya zamiluunii zamiluunii khadiijo waa daday nebiga calayhi salaatu wasalaam kadibna nebigu markuu argagixii ka tegey ayuu oga waramay khadiijo uu yihi laqad khashiitu calaa nafsi qaalat kala wallahi laa yukhzika allahu abada mowqif waxay istaagtay qof dumar ah uu istaago mowqifka ugu kheyrka badnaa nebigana calayhi salaatu wasalaam waxay u ahayd garab iyo gaashaan waxayna xusuusinaysaa mahmaha carbeed oo waxaa jirta wara'a kuli cadiimin imra'a la yiraahdo nin walba oo dunidan maqaam gaaray waxa dhabarka u ah ee udub dhexaadka u ah waa qof dumar ah weeyaan nebiga calayhi salaatu wasalaam waa keligii wuxuu arkay waxaanan bini aadan aynan arkin oo ah jibriil suurada ilaahay ku abuuray subxaana wa tacaala xataa sadda alufuq buu yihi nebigu alayh salam ilaa uu iga xiray xitaa jihadii oo dhan waxba uu arki waayey nebigu calayhi salaatu wasalaam waa la qabtay oo waa la gelgelay weliba ilaa uu argagaxay nebigu calayhi salaatu wasalaam laakiin markuu guriga yimid umina khadiija radi allahu tacaala canha waa daday nebiga calayhi salaatu wasalaam argagaxii baa ka tegey way wareysatay markuu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam laqad khashiitu calaa nafsii waxay ku tiri kalaa wallah laa yukhzika allahu abada ilaahay baan ku dhaaranaya ilaahay ku hoojin maayo markaasay waxay tilmaantay 5 sifaat oo khaas ah oo nebigu uu lahaa uu kaga duwanaa mujtamacii uu la noolaa kadibna way wada nebiga calayhi salaatu wasalaam waxay u geysay waraqata bna nawfal waraqata bna nawfal ayay ku tiri in adeerow bal ninkan waxa uu sheegayo walaalkaa uu dhalay dhegeyso waa la wareystay nebiga calayhi salaatu wasalaam nebiga waxaa lagu yihi hada annaamuus aladi jaaa muusa kani waa khayr wadihii ilaahay uu usoo diray nabiyullaahi muusa waxaadna tahay ummaddan iyada ah nebigeedii meeshaasaa nebiga calayhi salaatu wasalaam waxyigiisii markaa iyo risaaladiisii ay ku bilaabatay qur-aankii ugu horreeyana lagu soo dejiyey salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu la kulmay dhib waraqata bna nawfal wuxuu ahaa nin masiixi ah akhriya towreed iyo injiil labadaba carabigana ku qora injiil iyo towreed waxyaabihii uu ka dhaxlay injiil iyo towreed waxaa ka mid ahaa in uu ku yiri nebiga calayhi salaatu wasalaam yaa laytanii kuntu jadcan id yukhrijuka qowmuk nebiga calayhi salaatu wasalaam wuu la yaabay warkaa isagoo odhanaya awa mukhrijiihum markay dadkaaga ku saarayaan shalaytadayday maan ahaado nin dhalinyaro ah ilka ritay markaasuu nebigu wuxuu yihi awa mukhrijiihum oo miyay isaari doonaan wuxuu ku yihi ma jiro qof waxaad la timid la yimid ilaa waa cuudiya waa lala dagaalamaa ficlanna sidii bay noqotay nebiga calayhi salaatu wasalaam markiiba waxaa dagaal ku bilaabay dadkii hareerihiisa ahaa bal dadkii sokeyihiisa ahaa dadkii qaraabadiisa ahaa abilahab oo ilaahay uu qur'aan kusoo dejiyay ilaa qiyaami saaca la akhrinaya tabat yadaa abi lahabin wataba waa ina cabdi mualib weeyaan nebiguna waa ina cabdullaahi bni cabdilmualib marka waxaad garan kartaa colaaddu meesha ay gaartay nebiga lagu qaaday salawaatu ullahi wasalaamu caleyh laakiin nebigu salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wuxuu ahaa amiin wuxuu ahaa saadiq wuxuu ahaa xaliim salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaasoo dhan waxba kama dhiganaynin nebigu calayhi salaatu wasalaam waa hijrooday wuxuu rafaad la kulmaba madiina waa lagu soo dhoweeyey dad ka jecel naftooda iyo xoolahoodaba reerkooda ka jecel baa soo dhoweeyey nebiga calayhi salaatu wasalaam una noqday garab iyo gaashaan ilaahay wuxuu qadaray subxaanahu wa tacaala inuu dib ugu soo rogaal celiyo magaaladii maka ahayd ilaahayna qur-aanku ku sheegay subxaanahu wa tacaala waxaa la yidhaahdaa suuradaha qur-aanka suuradihii ugu dambeeyey soo degta waxay ahayd ida jaءa nasr اllahi wاlfatx 8 cisho ka hor intuuna nebigu dhimanin salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ayay soo degtayna waa la yidhaahdaa waxay calaamad u tahay oo daliil u tahay sida cabdullahi bn cabaas iyo cumar bn khadaab labadaba odhanayaan geerida nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh maxaa nebiga lagu leeyahay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ida jaءa nasr اllah wاlfatx
ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا oo macnuhu yahay haddaad aragto furashadii maka inay dhacday oo dadku soo islaamayaan maxaa yeelay sanadkii 11aad ee islaamka hijriyada islaamka waxaa loo yaqaanay caamul wufuud sanadkii ay wufuud oo dhan carabi soo dhigatay inay soo islaamto ilaahay wuxuu qadaray subxaanahu wa tacaala inuu maka furto nabiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh shalay raggii dhibaataynayey ee waxaad aragti ku samaynayey nabiga markuu gacanta ku dhigay ee uu yidhi maanta maxaad iga filanaysaan waxay ku yidhaahdeen nin wanaagsan baad ahayd nin raxiim ah baad ahayd nin qaraabada xiriiriyaad ahayd xumaan kugumaanan aqoonin maantana inaa iska keyndaysaan rajaynayna nabigu calayhi salaatu wasalaam waa awooday inuu mar keliya wada laayo laakiin see u laynayaa nabiga calayhi salaatu wasalaam iyadoo ilaahay kusoo dejiyey fii suurati fusilat aayadaha ku jira oo alle uu leeyahay markuu ka hadlayay idfac bilatii hiya axsan faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim wma yulaqaha ila aladiina sabaruu wma yulaqaha ila du xadin cadiim see nabiga u laynaya calayhi salaatu wasalaam isagoo raxiim ah nabigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam idhabuu faantum طulaqaa iska taga waxaad tihiin طulaqaa kuwa la sii daayay baad tihiin nabigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ka xigsaday inuu iska sii daaya salawaatu llahi wasalaamu caleyh mowqifkaa keliyana ma ahayn bal mawaaqif badan baa jirtay sidaas oo kale ah nabigu calayhi salaatu wasalaam mar walbaba xataa dadka dhibaataynaya saxaabadu ay oga soo sheegeen nabiga calayhi salaatu wasalaam inay dhibaato hayaan nabigu wuxuu dhihi jiray iska dhaaf faraha ka qaada waana mowqif wanaagsan weeyaan maxaa yeelay ilaahay baa wuxuu leeyahy subxaanahu watacaala idfac bilatii hiya axsan qofka xumaanta kugu sameeya wanaag ugu bedel maxaa yeelay faida aladii baynaka wa baynahu cadaawa kaanahu waliyun xamiim waa xamiim buu kuu noqonaya islaamku rasuulka calayhi salaatu wasalaam islaamka uu nagu tarbiyeyey kaasuu ahaa mar walba inaan ka qaadano dhanka cafiska allana subxaanaه watacaala waana amraya khud ilcafwa waamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin laakiin mowqifka nebiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh mowqifka nebiga calayhi salaatu wasalaam waxaa ka dambeeyey jahli tiro badan jahligaas oo aan ognahay in nebiga calayhi salaatu wasalaam diintiisii ay noqotay diin dadku ay kasii dhammaanayaan oo see uga sii dhammaanayaan waa su-aasha meesha iman karta macnaheedu waxa weeyaan cilmigii baa dhammaanaya nabiguna waa inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo aan jeclahay kelimadeyda aan kusoo gabagabaynayo xadiid waxaa jira cabdullahi bni camr bni caas uu warinayo fii saxiixi albukhaari wa muslim sunanka oo dhan kulli ay warinayaan musnad imaam axmed kulli waa ku sugan yahay xadiidku waa xadiid mashhuur ah wuxuu oranaya rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu caleyh markuu ka hadlayey ina allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min suduuri الnaas walakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa xata ida lam yabqa caalim itakhada الnaasu ru'uusa juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadaluu waadaluu oo macnuhu uu yahay nabigu inuu yihi salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ilaahay cilmigan ma qaadanaya qaadasho dadka markuu siiyey kadib sida bacd riwaayaat ku yimid laakiin ilaahay cilmigan waa qaadanaya biqabdi اlculamaa culamadiisu ilahay la qaadanaya culamada waxaa ugu horreeyey rasuulka calayhi salaatu wasalaam xadiid waxaa jiray sidoo kale dhinaca kala sugan uu warinayay ziyaad ibnu labid nin la yiraahdo abi darda baa warinaya saxaabo badan baa warinaysa nebigu calayhi salaatu wasalaam isagoo magaalada madiine jooga ayuu samada eegay isagoo odhanaya hada awaanu rafci اlcilm waxaanu maraynaa waqtigii cilmiga la rafcin lahaa ninkaa la yiraahdo ziyaad ibnu labid ee saxaabiga reer ansaareed ayaa wuxuu ku yihi rasuulka allow see cilmiga loo rafcinaya anagoo baranay kitaabkii ilaahay caruurteennaanu sii barayna caruurtooda kale sii barayaan say ku dhici karaysaa nebigu wuxuu ku yihi calayhi salaatu wasalaam hakiladka umuka ya bna labiid war hooyada ha ku weyda ina labiido waxaan u malayn jiray inaad ka mid tahay min afqahi ahli اlansaar laakiin fiiri buu yihi nebigu calayhi salaatu wasalaam yahuud iyo nasaara maanta kitaabkiina waa dhex yaala aw kitaabkii ilahay xaggay kaga sugan yihiin macnuhu waxa weeyaan ilahay culimadiisu qaadanaya nebiga calayhi salaatu wasalaam markii la qaatay salawaatu ullahi wasalaamu caleyh ee uu dhintay waxa ugu horreeyey ee dhaca wuxuu ahaa khilaaf bayna asaxaaba ma dhimanin iyo waa nool yahay iyo waa soo noqon doonaa waxa ku xigay wuxuu ahaa nebiga seenuu aasnaa iyo bini aadam buu ahay sidaan anagu isu dhaqi jirnay haloo dhaqay wixii la mid ah waxa ku xigay wuxuu ahaa yaa qabanaya maamulkii islaamka waa weli nebigu calayhi salaatu wasalaam lama xabaalin marka waxaad garanaysaa ilaahay subxaanahu watacaala cilmigan uu dhulka keenay wuxuu ahaa nebiga salawaatu اllahi wasalaamu caleyh nebigu waa tegey salawatu اllahi wasalaamu caleyh ina allaha laa yaqbid اlcilma intizaacan yantazichu min suduuri الnaas walakin yaqbid اlcilma biqabdi اlculamaa caalimka ugu horreeyey ummadda laga qaaday nebigu ahaa salawatu اllahi wasalam uma bacda dalika ahli اlcilmiga min aلصaxaaba uma الtaabiciin uma atbaac الtaabiciin uma ahli اlcilm xata ida lam yabqa caaliman markuu caalimba la waayo maxaa dhacaya marka itakhada الnaasu ru'uusa juhaala
qof xoogaa bowsaday baa dadkii la horgeynaya. fa su-iluu waa la weydiinayaa, fa aftow iyana waa jawaabayaan. hadday jawaabaan maxaa dhacaya? hebel dhiiggiisu waa xalaal, hebel xoolihiisu waa xalaal, hebel sidaa in la yeelo waa xalaal. qofka hawadiisii ayaa u noqonaysa wax uu ka amar qaato. allahna waa inoo sheegay subxaana wa tacaala, afara'ayta man ittakhada ilaahahu hawaah, hawadiisa ilaahay ka dhigtay. waana mas'ale aada cadiim u ah. ina allaha laa yaqbidu alcilma intizaacan yantazichu min suduuri الnaas walakin yaqbidu alcilma biqabdi اlculamaa xata ida lam yabqa caalim ittakhada annaasu ru'uusan juhaala. waxaad arkaysaa intaasoo magacyo, intaasoo xisbi, intaasoo jamaaca, mid walbaba uu sheeganaya inuu xaq isagu haysto. laakiin waa qowlka nebiga meesha ku jira salawaatu اllahi wasalaamu caleyh, ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilm fadaluu waadaluu. iyana waa lumeen, ummadiina waa lumiyeen. waa mithaalkii alle uu ka bixiyey subxaanahu wa tacaala qolooyinka nasaarada ah. alle uu yihi subxaanahu wa tacaala, iyana way baadiyoobeen, dadkii ay raacayna waa baadiyeeyeen. nacam, sidaas weeyaan. maxaa yeelay waxaa jira fi tarjamati cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa, kanaan kusoo gabagabeynaya kelimadeyda. cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa, tarjamadiisa imaamu dahabi fi kitaabi tadkirat alxufaad, keyrkiisana waa wariyaan. nin la oran jiray, waxaa jiray ziyaad ibnu kumayl, ayaa wuxuu oranaya caliy bn abi aalib baan la fadhiistay, bacda salaati alfajr bay ahayd. markaasuu wuxuu igu yiri buu yihi, annaasu halaath, dadku waa saddex, wax afareeya ma laha. waa qof caalim rabbaani ah, wa caalimun mutacalimun cala sabiili الnajaah. labadaa hore waxa weeyaan qof caalim rabbaani ah, garanaya kitaabka ilahi subxaanaه wa tacaala, garanaya xadiidka nebiga salawaatu اllah wasalaamu caleyh, kaasi waa cala ariiqi najaadka weeyaan. ka kale waa mutacalim, baranaya cilmigii, laakiin qaaday cala sabiili الnajaat. isaguna waa arday baranaya diinta ilahi subxaanaه wa tacaala, dariiqeedii haya. kuwa saddexaad cali wuxuu ku tilmaamay waa rucaac, atbaacu kuli naaciq, qof kastoo dhawaaqo oo diin iska sheegtay oo iska dabagelayaan iyagoo aanan hubsanin. waxaa hubaal amaanta ajhal الnaas haddii uu yimaado oo sheegto inuu guruub yahay, dad baa dabagelaya, shaki ma lah. maxaa yeele cali bn abi aalib radi allahu tacaala canhu ardaa, caalim buu ah. waa min yani khawaasi asxaabi rasuuli اllahi salى allahu alayh wali wasalam. waa khaliifkii afraad ee islaamka, waa ibna cami rasuuli اllahi salى allahu alay wasalam. waa awal qofkii ugu horeeyey oo dhalinyara oo soo islaama, bal wuxuu kusoo barbaaray beyt الnubuwa. khadiija soo korisay iyo rasuulka salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ilى gayri dalik. marka waa cilmi ayuu lahaa. markuu tilmaamayo uu leeyahay kuwan kale waa hamaj, rucaaca, atbaac kuli naaciq, waa runtiis weeyaan ficlan. waana waxa maanta taagan. maxaa yeelay culimadii rabbaaniyiinta ahayd ilaahay waa qaatay subxaanaه wa tacaala. walidalika aad arkaysaa culimada islaamka waxay yiraahdaan yani bacda الصaxaaba ridwan اllahi tacala calayhim, bal fi الصaxaaba zamankeedii waxaa soo baxay firaq daala ah. firaqda daalada ah waxaa ka mid ah oo ugu horeeyey qolooyinka khawaarijta ahaa. axad min asxaabi rasuuli اllahi ma raacin, wala axad min الtaabiciin oo raggii ahaa kibaaru ahli اlcilm ma raacin. waxaa yimid qadariyadii fi zamani الصaxaaba. cabdullah bn cumar baa noolaa, kama fi xadiidihi cinda صaxiixi muslimin kitaab اliimaan. ninka la yihahda yaxya yacmuri iyo cabdiraxmaan ayaa u tegey xadiidka fi صaxiixi muslim isagoo tawaafaya. way u sheegeen qoladinka qadariyada ah, wuuna radiyey cabdullah bn cumar radi allahu tacaala canhu ardaa. qof asxaabta rasuulka oo raacay ma leh, qof ahlulcilmi ah oo raacay ma leh. wahaakada firqa daalla ma jirto ilaa ru'uus ahli lcilmi qof raacaya ma arkaysid. waxaad arkaysaa marka in ay yihiin qolada saddexaad ee caliy bn abi aalib uu tilmaamayo oo ah in ay yihiin atbaacu kuli naaciq, qolo kasta oo baadi iska dabagelaya. wailaa islaamku waa waadix weeyaan, kitaab allah wa sunat rasuuli salى allahu alayh waalih wasalam na lagamana qaadin, weli way yaalaan. laakiin waxaa iman doonta sida calaa madhabi ahli الsunati waاljamaca, alqur'an wالsuna ay noo tilmaamayaan in ilaahay qaadi doono subxaanaه wa tacaala, la rafcin doono. laakiin intaa horteed waxaa imanaysa in ilaahay quluubtii xambaarsaneyd uu qaadanayo subxaanaه wa tacaala, ilaa dadkii kitaabka ilaahay oo dhex yaala, sunadii nebiga oo dhex taala salawaatu اllahi wasalaamu caleyh ay ka yihiin jaahil. taana wax la ina weydiinayo maahe, waa waxaynu aragna weyaan, yowmiyan baanu aragnaa. yani qof soomaaliyeed maalan maalin dhaweyd baa laga hadlayay, qof soomaaliyeed oo aan garanaynin goormuu soomku waajib yahay. yani maalintii imis saacadood baa la doonayaa in la soomo, goormuu bilaabanaya, goormuu dhammaanaya, aan garan karaynin casrigana nool.
waxay ku tusinaysaa in ilaahay subxaana wa tacaala cilmigii qaatay biqabdi alculamaa xata ida lam yabqa caalim ittakhada annaasu ru'uusan juhaala fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadaluu waadaluu ficlanna taas weeyaan tan aynu ku sugannahay waxa keliya ee ina badbaadin karaya waxa weeyaan cilmu lkitaabi wasunna inaan dib ugu laabanno si aynu ugu laabanno xayaatadii rasuulka calayhi salaatu wasalaam intaasaan jeclahay inaan iraahdo wajazaaka allahu khayran baarak allahu fiik sheekh waxaan jeclay inaan ku weydiiyo waxaad sheegtay fatxulmakaad xustay rasuulku sala allahu alay wasalam isagii iyo askartiisii xoog badan oo hub haysta bay dib ugu soo noqdeen magaalada maka banaankeeda kufaarul quraysh abu sufyaan baa hogaaminaya dadkii dhibaatadii la ogaa mariyey guryahoodii gubay dadkii xasuuqay buu soo dul istaagay saraakiisha maanta adduunka ka talisoo dagaalada balaayiintu ku baxda hogaamisa waxaasoo dhan korkay marin lahaayeen maxaa ku kalifay maxamedun rasuulullah sal alla alay slam cadowgiisi inuu cafiyo waxaa ku kalifay waynu tilmaanay maxaa yeelay isagoo ilaahay uu ku soo dejiyo subxaanahu wa tacaala khudi alcafwa wa'mur bilcurf wacrid can iljaahiliin oo macnaheedu uu yahay khudi alcafwa qaado cafiska mar walbaba dhinaca cafiska qaado hadday isu kaasinmaan labadooda cafiska qaada mar walbaba wa'mur bilcurfi wanaagana far wacrid can iljaahiliin qofkan waxa ku xambaaraya waxaa jirta mahmaha carbeed oo odhanaysa qofku wuxuu jaahil ka yahay cadow buu ku yahay mar walbaba waxaan markaadan aqoonin cadow baad ku tahay waad necab tahay ma doonaysid ma arki karaysid iyo wixii la mid ah marka acrid can iljaahiliin u cudur daar walidaalika aad arkaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu kasoo laabtay taa'if ee lagu dhibaateeyey maka ayaa lagu dhibaateeyey wuu ka baxay rasuulka calayhi salaatu wasalaam wuxuu aaday taa'if aad baa loogu soo dhibaateeyey qisadii dheerayd isagoo nebigu calayhi salatu wasalaam aada u miyir doorsoon oo la dakray oo la rafaadiyey oo haween iyo caruur laga adeejiyey ayuu wuxuu ku soo miyirsaday qarna thacaalib meesha la yihahday maka duleedkeeda nebigu calayhi salaatu wasalaam waxaa u yimid malaa'igtii waxaa ka mid ahaa malagii jibaalka buuraha amar keliya isii in aan isku dhufto buurahan iyaga ah nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu eegaya cawaaqibta mar walbaba maya waxaan rajaynayaa inuu ilaahay ka soo saaro quraysh qolooyinkan sidaa ii gelaya dhabarkooda kuwa ilaahay rumeeya subxaana wa tacala way ficlanna way dhacday nebiga calayhi salatu wasalaam ninka ugu cadowsan ee fircoon hadihi lumma loo yaqaano wuxuu ahaa abijahl wiilkiisa cuqba waa soo islaamay asxaabta rasuulkuna ka mid ahaa salawaatu llahi wasalaamu caleyh ragga futuuxaadka sameeyey buu ka mid ahaa ficlan nebigu calayhi salaatu wasalaam rajadii uu qabay ilahay waa uga dhabeeyey subxaana wa tacaala ficlan annaga haddaan saas sameynana way dhacaysaa ficlan iyo saas weeyaan xaqiiqatan marka ma la odhan karaa wuxuu nebi maxamed ku guuleystay sala allahu alay wasalam cadowgiisa quluubtooda inuu hanto oo ay ka mid noqdaan askartiisa ama dadka asaga rumeeya way tahay maxaa yeeley nebigu calayhi salaatu wasalaam saamixitaankan uu saamaxayo ayay ka dhalanaysaa taasina ma aha qiso iyo laba iyo saddex bal xayaatadii nebiga o dhan ayaa ahayd waxaa ka mid ah nin la yiraahdo thumaama ibna athaal ayaa jiray wuxuu ka mid ahaa raggii kaaba qabiilada ah isla markaana nebiga calayhi salaatu wasalaam cadaawaha u hayay maalin maalmaha ka mid oo saxaabada oo baxday ayaa waxay aragtay ninkanoo keligii socda dad yarna ay la socdaan waa la soo qabtay qolo dagaal loo diray oo meel aaday baa soo qabatay waa loo keenay nebiga salawaatu ullahi wasalaamu caleyh waxaa lagu yiri ninkii waa kan nebigu calayhi salaatu wasalaam wuxuu ku xabisay masaajidka dhexdiisa oo lagu xiray maalin walba nebigu waa u imanayay iska waran waxa uu lahaa haddaad ii dishana nin baad dishay haddaad ii daysana nin abaalkaaga hayaan ahay haddaad diya doonaysana diyadayda waa lagu siinaya intaasuu ku celcelinayay iyo wixii lamid ah maalintii dambe nabiga calayhi salatu wasalaam ee saddexaad wuxuu yidhi iska sii daaya faraha ka qaada waa cafiye faraha laga qaaday laakiin saddexdaa maalmood waxay ahayd 3 maalmood oo daawanayay islaamka min daakhil alislaam caloosha islaamka uu ka daawanayay maxaa yeele rasuulka calayhi salatu wasalaam iyo asxaabtiisii oo tukanaya masaajidkii buu ku dhex xiran yahay xayaatadoodii iyo noloshoodii buu arkayaa laakiin wuxuu u arkayay khasab iyo jujuub inuu ku joogo 3dii cisho markay dhammaatay ee la sii daayay ee faraha laga qaaday waxbana lagaama rabo diya lagaama rabo xoolo lagaama rabo waxba lagaama rabo iska tag waa baxay masaajidka dhinaciisuu tegay waa soo qabaystay waa soo laabtay wuxuu yidhi ashhadu an laa ilaaha ila allah wa ashhadu anna muxamadan rasuulullah marka islaamku waa kaa weyaan xaqiiqada ah ficlan waa gartay waxaan ognahay qisada sheegtayba qisadkiisa rasuulka lama soo koobi karo sal alla alay wasalam waxaan ognahay ninkii yahuudkaha qodaxaha udhigi jiray dariiquu marayo suu ola dhaqmay waxaan ognahay ninkii maskiidka ku kaadiyey suu ola dhaqmay iyo qisas fara badan oo noocaas oo kale ah
haddana markaan maanta dunida aan ku noolnahay waxaad maqlaysaa diinta islaamka waa diin dhib badan, waa diin dadku isqarxiyaan, waa diin dumarka u daran. haddana waxaan xasuusanaa gabadhii zinada ku dhacday oo ilmaha naaska nuujinaysa sida oo la dhaqmay iyo qisaska la mid ah. haddii noloshiisu sidaas ay ahayd, islaamkuna sidaas uu yahay, haddana waxaad arkaysaa dhinaca kale markaad fiirisid kumanaan kun maanta inay diintiisii qaadanayaan oo soo gelayaan. haddii sida reer galbeedku noo sheegaan ay tahay xaaladdu ay diin dhib badan oo dagaal badan oo dumarka xuquuqdooda ku tumarta tahay, adigu Canada degan tahay, maalin walba waxaad aragtaan dad cadaan iyo madow oo soo muslimaya ama indha yar ama wax kale ah. maxaa ku kalifaya inay diintan soo galaan oo ay ka waayeen diimaha kale ay haystaan iyo dhaqamadooda? su-aashaada waxaan kaga soo jawaabi karayaa nin dhalinyara ii yimid qisaana ii qabsatay. ninka dhalinyarada ii yimid masaajidka salaada casar markaan tukanay bay ahayd, dhalinyarada ii keentay ninkan inuu islaamo rabaa. waan soo fadhiisiyey, waxaan ku yidhi intaadan islaamin ama aadan islaamka aadan soo gelin maku weydiin karaa su-aal? haa. maxaa kugu kalifay inaad islaamto? wuxuu igu yidhi qur-aankaan akhriyay. waxaan ku yidhi qur-aankaa xagee ka heshay? gurigaygu yaalla buu yidhi. oo maxaa kay gurigaaga keenay? ma garanayo yidhi. hooyaday aan weydiiyey, hooyaday baa qolo ka soo qaadatay oo lasoo siiyey kitaabka ingiriisa guriga yaallaan soo qaaday baa iska akhriyey. waxaanan arkay buu yidhi inuu yahay macaanida uu taabanaya inay aada ii taabanayaan. marka waxaan ku idhi qur-aanka intaad akhrinaysay maxaa ku saameeyey adiga? waxa saameynta kugu yeeshay ee kugu kalifay diintaada inaad kasoo tagto ee aada rumaysay islaamka maxay tahay? wuxuu igu yidhi waxaan arkay buu yidhi islaamka inuu yahay diin ilaahay iyo addoonkiisa inaan loo dhexaynin, qof u dhexeeya inaysan lahayn. macnaha adiga iyo ilaahay cid idin dhexaysa ma leh. oo maxaa dhahay aw diintaadii? wuxuu yidhi diintayda waa inaan usii maraa qisiis. qofkan kirishtanka ee kiniisadda jooga waa inuu isaga ii dambi dhaafo, waa inaan isaga wax walba u sheegto. laakiin islaamka wax innaba ha yaraatee intaa male. marka waxaan ku idhi maxaa ku taabtay qur-aanka intaad akhrinaysay? wuxuu ii akhriyay qul huwa allahu axad allahu samad lam yalid walam yuulad walam yakun lahu kufuwan axad. wuxuu ii tilmaamay aayadaha tawxiidka. marka waxa ugu badan ee taabta waxa weeyaan noloshooda raadka uu ku reebaya, waxa ay ku sugan yihiin iyo waxa markaa ay arkayaan qur-aanka ay ka arkayaan oo ay leeyihiin waa kan nolosheena aan doonaynay. in badan oo sidaa tirina waan arkay ficlan. marka qur-aanku wuxuu taabanayaa noloshoodii, waxay arkayaan inuu yahay ka keliya ay noloshoodu ay ku saxmayso haddii ay qaataan. ilaahayna waa inoo sheegay subxaana wa tacaala, allana subxaana wa tacaala qur-aankiisa isagoo la hadlaya nebiga calayhi salaatu wasalaam iyo ummadiisaba la hadlaya qur-aanka inuu noo yahay nolosheenna idil buu ilahay noo tilmaamay subxaana wa tacaala. ficlanna ilahay isagaa abuuray koonkan, bini aadankanna isagaa abuuray. markuu abuurayna warshad walba marka ay shay samayso waxay soo raacaysaa wixii isticmaalkiisa ah iyo sida loo samayn lahaa iyo wixii idil. ilahay koonkan markuu abuuray bini aadanku uu abuuray wuxuu soo raaciyay qur-aankiisa waa kalaam ullahi caza wajal, kaasoo tilmaamaya xayaatadeenna waxay ku wanaagsanaanaysa iyo waxay ku xumaanaysa intaba. allana uu leeyahay subxaana wa tacaala maa faradnaa fi lkitaabi min shay. laakiin inagu waxa weeyaan kitaabka ilaahi subxaana wa tacaala waanu haysanaa, laakiin jaahil baynu ka nahay. dhibka ina haysataa weeyaan maanta keentay dadka muslimiinta in ay in badan oo ka mid ah ay u maleeyaan islaamkii in ay haystaan, laakiin islaamku uu yahay fii waadin wahum fii waadin aakhar. waxa keenayna waa cilmi yaraanta weyn iyo jahliga. ilaahina waxaanu ka baryaynaa subxaana wa tacaala cilmi naafica. muhiimad intee la-eg bay leedahay qofka aad diinta ka baranaysid inaad aqoon u leedahay, gaar ahaan caqiidada uu qofkaasu aaminsan yahay ilaa waxa ilahay ugu dhawaanaysa? culays intee la-eg bay leedahay iyo miisaan? nacam, maxaa yeelay cilmigan waxa soo qaaday nabiga ka soo qaaday calayhi salaatu wasalaam waa culimada. ilahay baa qur-aanka inoogu sheegaya subxaana wa tacaala, rasuulkiisa inoo tilmaamaya salawaatu ullahi wasalaamu caleyh. yaa marka hore caalim ah, qofka cilmiga laga baranaya culimada waa aya tilmaantiisu maxay tahay? qofka culimada ah tilmaantiisu waxa weeyaan awalan inuu yahay qof cilmigan soo xambaaray. nabigu leeyahy calayhi salaatu wasalaam kama fi saxiixi albukhaari isagoo mawquufa, sunan abi daawud isagoo marfuuca ilaa rasuuli illahi sala allahu aleyh wasalam can abi dar radi allahu tacala canhu waardaa qaala qaala rasuulu llahi sala allahu alay wasalam alculamaau warahatu alambiya. waa inuu dhaxlay nabiga calayhi salaatu wasalaam. ambiyada allana lagama dhaxlin dirham iyo diinaar sida xadiidka uu tilmaamaya, laakiin waxaa laga dhaxlay waa cilmi. faman akhadahu akhada bixadin waafir. cilmiga laga dhaxlay nabigu calayhi salaatu wasalaam waa qur-aanka iyo sunnada nabiga salawatu llahi wasalaamu caleyh, cilmiga sharciga ah. qofka marka caalim marka la leeyahay waa inuu u leeyahay cilmi bilkitaabi wasunna. arinta labaad waxa weeyaan waa inuu yahay qof ilaahay ka baqanaya subxaana wa tacaala. maxaa yeeley ilaahay baa tilmaamay fi lqur'aani alkariim fi suurati fatir, rabbi wuxuu oranayay inamaa yakhsha allaha min cibaadihi alculamaa.
ilaahay waxaa ka cabsanaya addoommadiisa waa kuwa culamada ah. caalimna waxaa la yidhahdaa markay culimadu fasirayaan waa qofka ilaahayna ka baqanaya subxaana wa tacaala kuna camal falaya isaga naf ahaantiisa bilkitaabi wasunna. marka waa inuu cilmigiina garanayo kuna camal falaya ilaahayna ka baqanayo dadkana ugu yeerayo. maxaa yeelay waa dariiqii ambiyada ilaahay. ambiyada ilaahayna waxay ahaayeen cilmigan ilaahay ay ka dhaxleen subxaana wa tacaala xaggiisa unbay dadka ugu yeerayeen. marka qofka caalimka ah wuxuu taagan yahay mowqifkii nabiga calayhi salaatu wassalaam. ma aha inuu dadka siday u caytamayaan u caytamo, ma aha inuu dadku hadday iyagu simbirraxdaan inuu la simbirraxdo. waa qof mathalaya nabiga calayhi salaatu wassalaam, mowqifkii nabiga taagan. haddii isaga la dulmiyo waa inuu saamaxo weeyaan, haddii isaga lagu gardaroodo waa inuu indhaha ka laabto weeyaan, siduu nebigu ahaa salawaatullahi wasalaamu caleyh. maxaa yeelay waxaad xambaarsan tahay ayaa sida ah. marka qofka aad cilmiga ka baranaysid waa muhim weeyaan. walidaalika taabiciintii waxay oran jireen sida imaamu muslim fi kitaabihi muqadamada uu ku sheegaya saxiix muslimka ah, waxay oran jireen marka ay ka hadlayaan dadka culamada ah, waxay oran jireen cilmigan waa in laga qaataa qof la garanayo. maxaa yeelay qofka aan la garanaynin dhibkiisuu leeyahay. rasuulkana waa noo sheegay salawaatu llahi wasalaamu caleyh. xadiid bimajmuuci turuqi xasana wuxuu ku oranayay yaxmilu hada alcilmi min kuli khalafin cuduuluh. qofka cilmigan xambaaray waa inuu caadil yahay, bimacnaa la jiifiyaana banaan waa inaysan noqon. maalintuu isaga doonayana inuu sidaa u seexiyo, maalinta ay isaga ku foorartana inuu dhanka kale aadama. yaxmilu hada alcilmi min kuli khalafin cuduuluh yanfuuna canhu taxriif alghaaliin waintixaal almubtiliin wa ta'wiil aljaahiliin. intaba waa inuu ka nadiifiyo xag jireenka xaggan ah iyo kuwa kale xaggan ah iyo jaahiliinta iyo waxoo dhan waxa ay la imanayaan waa inuu diinta ilaahay ka nadiifiyaa. qofkaasaa caalim rabbaani ah, qofkaasaa mudan in wax laga barto. waana in dadka looga bilaabaa cilmiga. asal buu leeyahay cilmiga waxa looga bilaabayo waa hoos. ilmaha dugsiga qur-aanka marka la geeyay alif ba ta tha baa looga soo bilaabaa, baqaro loogama soo bilaabo. alif lam mim dalika alkitaabu laa rayba fiihi hudan. cilmigana sidaas weeyaan. maxaa yeelay culamaa rabbaaniyiin marka la tilmaamayey ahlulcilmiga ay tilmaamayaan waxay yidhaahdaan waa kuwa bara cilmiga sigaara alcilmi kasoo bilaaba qabla kibaarih. sidaasaana loola jeedaa. marka qofka caalimka eed wax ka baranayso waa muhim jiddan. imaamu shucba oo ka mid ah ahlulxadiidka kana mid ah ahlulqur'aan ayaa wuxuu oranayay qofka aan cilmiga ka baranayo intaanan cilmiga ka qaadanin waxaa dhici jirtay inaan 8, 9, 10 mar ka badan aan u imaado isagooni ogeyn, si aan u arka bal siduu cilmigiisa ugu camal falayo. uma bacda dalika aan cilmiga ka baranaya. marka taasi waa saxiix weeyaan. maxaa yeelay intaadan ku dhicin wada halaq mareen ah ama aadan gelin meel aanan ku habboonayn, marka hore waa inaad iska hubisaa qofkani mowqifka uu ka taagan yahay cilmiga uu sheeganayo see yahay. waxaadna ogaataa rasuulku calayhi salaatu wasalaam xadiidkii cumar bn khataab, cabdullah bni cumar wagayra dalik, nabigu wuxuu yihi calayhi salaatu wasalaam antum shuhadaau llahi fi lard. addoommadan ilaahay subxaana wa tacaala waa shuhado markhaati weeyaan. qofka ay wanaag iyo khayr oga markhaati kacaan insha allah saasaanu u rajaynaynaa. qofkay xumaan oga markhaati kacaanna sidaasaa looga baqanayaa. ma dhahayna waa u rajaynaynaa lakiin waa oga baqanaynaa. marka qofka wanaagga lagu tilmaamo oo ummadda ay ku tilmaamaan hada huwa alcaalim insha allah. wallahu aclam. hagaag baarak allahu fiik sheekh, khayr allah ku siiye. waxaan dhowaan insha allahu tacaala idiin furaynaa haddii la yihahdo khadka teleefanada. waxaana ka hadlaynaa mawduucan ka hadlaynaa islaamku siduu dunida kusoo gaaray, siduu u bilowday, iyo dadkeena qurbaha jooga siday u gaarsiin lahaayeen fariintii uu ka tegay calayhi salaatu wasalaam ummadan aan la noolnahay iyo ahelkeena iyo qaraabadeena anagoo ka bilaabayna. dabcan ma ahan barnaamijkii halkan wiigii hore ka baxay oo kale su-aalaha iyo jawaabta ahaa. waxaa laga yaabaa inaad dad cadaana ama madow ama aan muslimba ahayn aad isla shaqaysaan ama isla nooshihiin. sidee loola noolaanaya, see wax loogu sheegaya, xaggee wax loogaga bilaabaya iyo waxyaalaha la midka. waxaan kaloo insha allahu tacaala jecelnahay noo soo socdo sheikha inaan weydiino dunidan aan ku noolnahay reer galbeedka waxaa leedahay islaamku dumarka maaragtay wuu jajuubaya iyo xorriyaduu ka qaadaya iyo jaakaduu u gelinaya maaragtay wuu khasbaya. bal xaqiiqada waxay tahay insha allahu tacaala inaanu ogaano iyo islaamku inuu arrintaas la sheegaya dhab tahay iyo inuu islaamku u hiiliyey dumarka dunida jooga iyo weliba raxmadiisa ilaahay subxana wa tacala uu ku ammaanay suuradda 12 ee suuratu yuusuf aayadeeda 107 ama 8 wamaa arsalnaaka ilaa raxmata lilcaalamiin inaanu wax kasii ogaano insha allahu tacaala. qofka ugu horeeya baan fursad siin marka hore insha allah. asalaamu calaykum. halo halo assalaamu calaykum. waalaykum salaam. soo dhawaadal magaca waa guuleed. guuleed xaggee joogtaa? norway. barnaamijka waa la socotaa wuxuu ku saabsan yahay. si fiican. soo dhawaad walaalkay. ma maqlaysaa? si fiican ma ku maqlaa guuleed. waxaan
rabay keliya inaan weydiiyo sheekha su-aal ta koobaad waxa weeyaan horta xadiis waxaa jira dhahaya inkastoona si fiican wada haynin umirtu an uqaatila annaas xataa yashhadu an laa ilaha ila allah ha saxiix marka run ahaantiina muxuu aha waxaa si fiican sheekhu inoogu bayaamiyey in mataqaanaa diintan islaamku ay tahay diin nabadgelyo marka waxaan rabay keliya labadaas sidii la isku waafajin lahaa waa gartay inuu sheekhu noo sheego ta kale dad badan oo aan muslim ahayn baan wada shaqeyna oo gaala ah dadkaa laftigooda sidii looga dhaadhicin lahaa mataqaanaa diinta islaamka waxay daawadaan un adugu badanka muxuu ahaa inay dad muslimiin ah oy dhibaato geysanayaan waxayba ku oranayaan adduunka maanta waxaa la isku haystaa wax kale maaha waa diimo dartood marka iyagu maba aaminsaneyn diin iyo waxaas waa dad aan diin aaminsaneyn marka arrintaana laftigeeda sida looga dhaadhicin lahaa sheekhu inuu noo bayaamayo waa gartay guulad khayr allah ku siiyo sheekh bashiir xadiiskaas walaalka uu akhriyey waxaad kaloo dabcan xasuusan kartaa suuratu tawba ilaahay subxana watacaala markuu dagaalka iyo jihaadka ka hadlaya uu leeyahay maxaa la dhahaa qaatiluhum xayثu wajadtumuhum saas oo kale marka waxyaalaha marka la fiirsho sidee islaamku muxuu ula jeedaa waxyaalahaas بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد حديثك هو حديث صحيحة النبي يقول عليه الصلاة والسلام حديث عبد الله بن عمر في الصحيح كسو أروري أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى تا النبي عليه الصلاة والسلام وحي أرانيا أمرت أن أقاتل الناس تقريبا وحال يراهدا أما فعلا وحيبة تهيبة النبي عليه الصلاة والسلام هدو يراهدو أمرت وحا أمري وإلهي سبحانه وتعالى أنا عد كلمة أمرين صحابة هدي يراهدان أمرنا فعلا ويد عذا إن بدن وحا أمري ورسولك عليه الصلاة والسلام لأن عد كلمة ما أمرين مركا النبي قال كان وحي لي أمرت أن أقاتل الناس وحا أمري وإلهي سبحانه وتعالى النبي عليه الصلاة والسلام لبا حياته كن ولا مركا الله سوقات حياتنا مكو جوغي حياتنا مدينة جوغي سورة التوبة مدينة يكسو دكتين مكا كوما سودين النبي عليه الصلاة والسلام مكان حالد بو كسغنا مدينة حالد بو كسغنا حالد بو كسغنا وينو ognahay waatan hadda inuu kasoo hadlaynay isaga la dakhriyay isaga la dhibaateynayay isagoo tukanaya man dheer dhabarka laga saarayay nabigu عليه الصلاة والسلام inta waa aamusnaa salawaatullahi wasalaamu alayhi waxba ma qaadaynin laakiin markuu madiina yimi salawaatullahi wasalaamu alayhi cizi iyo shawkana uu yeeshay dawladna uu dhisay ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu amar ku siiyay markaa inuu dagaal qaado وانا مركا اي سو دغتay سوره التوبه ومركا حديثك عبد الله بن عمر نبي uu oranaya صلوات الله والسلام عليه iyo mararka lamid ah marka anagu halkan aynu joognaa ma waxaynu leenahay nabigu haduu yiri umirtu an uqatil الناس gaalka kugu dhow ee albaabka ku dhagan midida waa inaad gelisaa maya islaamku sida ma maya sida ma maxay leeyahay islaamku way ku dhexnoolaayeen gaalo wayna ku dhexnoolaayeen islaamka gudihiisa waxa la ina farayaa wuxuu yahay inaan nabadgeliyo iyo wanaag iyo khayr umada gaarsiino tasaamuh inay tahay diinteenuna tasaamuxitaanka adoona diintaadiina ka tagaynin abadan aanan diintaadii gorgortan ku galaynin laakiin diintaada adigoo hayo haddana wanaaga muuji inaad naxariis tahay muuji su-aasha labaad ee walaalka uu qabaa waxay tahay seenu dadka diinta u gaarsiinaa waxa muhiim ah qofka inuu diintiisa yaqaano waa laga maarmaan maxaa yeelay haddaadan diintaada aqoonin seed u badeecad geynaysaa waxan waa badeecad weeyaan nabigu wuxuu yiri عليه الصلاة والسلام كل الناس يغدو فبايع نفسه فمعتقها أو موبقها qof walba waa ka lahaya isagoo iib geynaya naftiisa ama naftiisii buu naar ka xoreynaya ama naftiisii buu naar gelinaya waxa aynu aroor walba iib geynayno waa nolosheenii waa xayaatadeenii waa diintaadii waxaad xambaarsan tahay seed uga tarjumaysaa diintaada haddaad jaahil tahay dhibkeeda ay leedahay ma taqaanid wayna dhib badan tahay waxa ugu muhiimsanna waxa ay tahay in aynu diinteenna muujinno waxaa dhici karaysa seen diinteeda u gaarsiiya iyo wixii la mid ah ilaahay mithaal yar buu ina siiyey subxaanahu wa tacaala qur-aanku waa amhila aad buu amhilo badan yahay ama ha noqoto ambiyada alle subxaanahu wa tacaala laqad kaana fii qasasihim cibra la yidhi ama ha noqoto amhilada xayawaanka waxyaabaha aada u cajiibka badan baa waxay tahay suurad dhan buu ilaahay kaga hadlay subxaanahu wa tacaala suurat الnaml quraanjadii wax ay ku hadashay ilaahay baa inooga warramay subxaanahu wa tacaala isla suuraddaas ayaa ilaahay wuxuu inooga warramay nabiyullahi sulaymaan iyo hudhudka wixii kala qabsaday nabiyullahi waxushira lisulaymaana junuuda qiso dheer weeyaan laakiin waxaan kusoo koobayaa waxushira lisulaymaana junuuda
nabiy llahi sulaymaan ciidamadiisii baa loo soo xaadiriyey laakiin watafaqada الطayr faqaala ma liya laa ara اlhudhud markuu shimbiraha marayay iyo wuxuu yihi maxaa dhacayo hudhudkii aawe nebi sulaymaan laba shay buu u ballan qaaday wuxuu yihi ima laadbaxanah aw layaأtiyanii bisulطaani mubiinin lawcadibanahu cadaaba shadiida aw laadbaxanah aw layaأtiyanii bisulطaani mubiin labada hore waa cadaab oo ah inaan gowraco ama inaan cadaab adag marsiiyo ama inuu xujo cad iila yimaado waa ku caddahay marka nebi sulaymaan wuxuu joogaa beyt almaqdis beyt almaqdis ayuu shimbirku ka dhaqaajiyey waa duulay ilaa saba u tegey balqiisa meeshay joogtay saba iyo nebiyullaahi sulaymaan meesha uu joogo waxaa udhexeeya 2200 oo ziyaado kilomitr baa udhexeeya taqriiban shimbirkana waxaa la yidhaahdaa waxa uu socdo inta ugu badan waa 40 ilaa 60 kilomitr ber saaca saacaddii intaasuu jiraa markaad isu qaybisid macnuhu waa ugu yaraan 48 hours 48 saacadood 2 maalin iyo 2 habeen inuu sii socday intaa waxa uu u socday waa dacwa shimbirkaasaa wuxuu gunaanadka ma doonaya mawduuca inaan kusoo wada qaato laakiin waxaan oga dan leeyahay waxay tahay shimbirkaasaa ugu dambeyntii wuxuu gaaray inay soo islaamto balqiisa iyo junuudeedii oo dhan dacwo ah shimbirku meeshuu diinta ilaahay ka walwalayo oo uu leeyahay alaa yasjudu lilahi aladii yukhriju alkhab'a fi الsamaawaati wاlard inii wajadtu imra'atan tamlikuhum wautiyat laha min kuli shay walaha carshun cadiim waxay u sujuudayaan buu leeyahay qoraxdii waxay u sujuudayaan sida warma ilaahay u sujuudaan subxaana wa tacala walwalka haysta waxa weeyaan dacwada iyo diinta waa shimbir adigoo bini aadan ah tafkiir leh caqli ilaahay ku siiyey diin ilaahay ku siiyey xambaarsan ilaahay subxaana wa tacaala uu kaa dhigay mas-uul seed uu walbahaari weyday gaalka deriskaaga ah ama qofka aad taqaanid waniba diintan ma aragtay kitaabkan qur-aanka bal arag luqadiisii ku qoran iyo wixii la mid ah cajalad yarood siisa iyo wixii la mid ah taasaa waxay keenaysaa in isbedel u yimaado in wada hadal yimaado iyo wixii la mid ah taas macnaheeduna waxay tahay inaynu walwal badan qaadno sidaynu dadkan diintu ilahay ku gaarsiin lahay maxaa yeele nebiga ayaa ina amray salawaatu ullahi wasalaamu caleyh balliguu canii walow aaya inaynu ka gaarsiino nebiga caleyh isalaatu wasalaam marka cala aqala qof hadduu sababtaada kusoo islaamo wanaag badan baa kuu sugan maxaa yeele nebigu wuxuu yihi laan yahdiya bika allahu rajula waaxida khayru laka min xumri الnicam xadiidka cali bn abi aalib yowma khaybar ee fi saxiixeynka ku sugnaa ilaahay subxaana wa tacaala inuu sabab kaaga dhigo qof hidaayadiisa waxay ka khayr badan tahay geeli gudgududna oo dhan macnaha xoolaha adduunka oo dhan marka walaalkaa waxaan leeyahay awalan diintaada baro uma bacda dalik cala aqala kitaabka luqadda ku qoran norway buu degan yahay safarkayga haddaan ka imid kitaabka isaga gaarsii waniho baltan arrintan intaa yar dheh kasoo fakr isaga sii ra'yigana isaga u dah isagaa arki doona islaamku waa arki doonaa lanna maxaa yeeley in badan waxa laga dhaadhiciyay waxaanan jirin islaamku inuu yahay cadaawi in islaamku inuu yahay qaarkood markay ku arkaan zayiga islaamka kuga arkaan waa kaa didayaan laakiin haddana markaad arkaan sida aad u dhaqmayso iyagaa kuu imanaya marka waxna waa wax laga dhaadhiciyo weyaan waxaadna ogaataa ilahay siduu inoo sheegay subxaana wa tacaala shaydaanku waa cadow ina shayطaana lakum caduw faاtakhiduuhu caduwa asaaliibtuu isticmaalayo cunfiga ah dagaalka ah wixii la mid ah adigu wanaaga isticmaal khudi اlcafwa waamur bilcurf waraxlin can اljaahiliin wallahu aclam baaraka allahu fiik waa hagaag qof kaloo ku xiga asalaamu calaykum halo السلام عليكم. aleykum salam raxmatullah soo dhow walaal magaca عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. t v-ga iska baktiya soo dhow السلام عليكم. calaykum asalaam waraxmat ullah barakaatu magacayga waa Xaliimo waxaan kasoo hadlaa London. soo dhow xaliimo waxaan weydiin lahaa sheekha oo kaliya qof oo gaal ah ma sii karaa kitaabka qur-aanka asoo ingiriis ku qoran mase waa inaan soo qayqayba iyo wax lamid aan siiyo hagaag sheekh su-aashaas waxaan kaloo jeclahay aydan dhinaceeda kale inaan fiirino ayadoo gaal ingiriis ku hadlay xaliimo noo sheegtay laakiin qibdiyiinta masaaridayo kale carabi bay ku hadlayaan laa yamasuhu ila mutaharuuna meel bay taallaa kitaabka qur-aanka oo carabiga laftigiisa ma siin karaa carabka afka carabiga ku hadlaya bismi illah qur-aanku waa kalaam allahi jala wacala sharafna waa leeyahay cizina waa leeyahay in la ilaaliyana way tahay
ayadda aynu soo fasirno uma bacda dalik aynu u nimaano jawaabta ayadda ilaahi subxaana watacaala wuxuu yihi laa yamasuhu ila almutaharuun tafsiirka ahlulcilmiga ah laba qowl baa jira laa yamasuhu ila almutaharuun qolo yar mutahariinta la tilmaamayo waa lawxulmaxfuudkii waxaa la tilmaamayana waa malaa'igta qolo kale waxay yidhaahdeen maya waa qur'aankii waxaa la tilmaamayana waa dadka oo la leeyahay laa yamasu haddii sidaa la yidhaahdo macnaheedu waxa wey qur'aanka ma taabto ilaa qof tahiran mooye arrinta iyada ah waxaa diidaya waxyaabo badan waxaa diidaya kow nabigu calayhi salaatu wasalaam rasaa'ilka uu dirayo iyo waraaqaha uu qorayo wuxuu ku qori jiray bismi illaahi araxmaan araxiim waxaa ka mid ahaa aayadihii fi suurati ali cimraan ee nabigu yihi calayhi salaatu wasalaam uu qoray qolooyinkii masiixiyiinta ahaa ayaa ka mid ahaa waxaa ka mid ahaa nabigu calayhi salaatu wasalaam rasaa'ilkii tirada badnaa uu diri jiray qur-aan baa ku qornaan jiray waxaa kaloo waaqicahoo ku tusinaya qur-aankana meel walbuu yaalaa waana la iibsan karaya gaalku waa iibsan karaa marka inuusan ahayn waxaa ku tilmaamaya waaqicaas oo idil oo ah kow nabigu calayhi salatu wasalaam waraaqihii uu qoray qolooyinkii gaalada ahaa qur-aan baa ku qornaa labo waaqicana maanta aynu joogno waxaynu aragnaa in meel walba uu yaallo library war kasta waa yaalla gaalada ah cid walbana waa haysataa marka waxa la tilmaamaya la leeyahay laa yamasuhu ila almutaharuun waa lawxu lmaxfuudka sida saxiixa ee raajixa wain kaana qowlkaana uu jiro cinda alculamaa waxaa la leeyahay masigaa samaynaya ee taabanayana waa malaa'igta weeyaan saasaana saxiixa maxaa yeele lawxu lmaxfuudka cid taaban karaysaa ma leh waa shay tahiran weeyaan oo ilaahay ilaaliyay ilaa kuwa tahiran ee malaa'igta unbaa taaban karaya ilaahay shaqo oga dhigay subxaana wa tacaala xataa kuli lmalaa'ika maaha malaa'igta shaqada looga dhigay oo keliya yaa taaban karaysa haddaynu taa kasoo gudubno marka qur-aanka maanta ma siin karaynaa qof gaal ah waxa wanaagsan hadduu gaalku yahay gaal ingiriisa mid ingiriisa si ha soo akriyo tarjamada qur-aanka ah ee ingiriiska ah si ha soo akriyo dhib ma laha laakiin waxaad ku tiraahdaa markaad soo dhamaysatay ii soo celi inta badan maxaa yeeley waxaan taa oga u leeyahay baa waxay tahay ixtiraaz aan ku sameynayo iyo ka digtoonaan intuu akhristo inuu iska sii tuuro waan arkay hadda ka hor meel qashin anigoo gaarigayga ka qaaday oo daadinaya oo waxaan ku arkay buug ku jira buugga ma ahayn buug igu cusub gacantaydaan hoos u raaciyay waan soo qaaday waa kitaab qur-aan ah aada baan oga naxay waxaan isla markii igu soo degdegtaa waxay tahay in qof la siiyey laakiin qofkaas intuu uunan ka helin inuu iska tuuray ha marka qofkan maadaama macrifo idinka dhexayso kitaabkan qaado buuggan qaado soo akri laakiin ii soo celi amaano weeyaan wuu soo akrinayaa wuu soo celinayaa hadduu ka helay wuxuu ku leeyahay wax kalaan doonayaa ama ma haysan karaa ama laakiin shardigu waxa weeyaan inaad kitaabkan aadan ihaaneynenin oo aad haysanaysid dhibaato male markaa tarjamada qur-aanka maxay tahay marka tarjamada qur-aanka ee luqad laga qaaday luqad kale loo bedelay ma qur-aankii baa weli maya waa tarjamo waa macnihii qur-aanka mooyaane ma aha qur-aankii asalka ahaa maxaa yeele qur-aanku ilaahay wuxuu yihi qur'aanan carabiyan gayra dii ciwaaj waa kaa carabiga ku qoran qur-aanku kani waa tarjamadiisii weeyaan ma noqonayo qur-aankii oo sidiisii ah gaalkan masiixiga ama la siin karayaa haddii uu doonayo qur-aanka shardigaana aad ku leedahay akri soo celi ha waa la siin karaya in sha allah wallahu aclam jazaaka allahu khayr waa hagaag qof kale ku xiga asalaamu calaykum hello asalaamu calaykum calaykum salaam soo dhawow t v iska baktiyo magacaha aniga mishna t v waaya soo dhawow magacaha caamir cabdallah waay caamir cabdallah soo dhawow caamir xaggee joogtaa australia soo dhawow maxaa jecesha inaa weydiiso sheekha waxaan rabaa sheekh inaan weydiiyo macnaha waxaan u socdaa india haddii alla yihahdo marka waxaan rabay gabar oo liisiya oo hinduu ah aan rabay inaan kasoo guursado markaa leedahay hindu ma diin ahaan baad tilmaamaysaa mise meesha ay ka timid iyo waddankeeda ma diin ahaan waa hindu budist sida buudaha iyo krishna iyo dadka caabudo weeyaan budist waay waa gartay aan kula kaftame mid muslimada soomaalida qurux badan ma weydo xaafidada wallahi soomaalidii waa ogtay xaaladooda soomaali aa gartay hay su-aashaada wada marka waa fahmaysaa wax kaste ha marka aabaheeda iyo waxay leeyihin soo doona gabartii waa ku sugnay marka waa kugu daraynaa waxaan dhahay diinta muslimkaa ku nikaxsanayaa waa yahay waa gartay marka ayadana diintii haysaa baduudi
marka sidee waa xaaladaas camir ku jir khadka telefonka because su-aashaada xoogaa yar xoogaa sheekhu inuu jeclaado inuu maaragtay su-aalkaas weydiiyo sheekh tafadal. بسم الله su-aasha intaanan ka jawaabin camir waxaan ku weydiin lahaa jazaaka allahu khayran inaad su-aashii aada qabtay aada soo bandhigtay naftirkeeda waxay tahay geesinimo inteeda la eg ilaahayna subxaana watacaala khayr badan ha kaa siiyo annaga iyo adigaba gabadha ma soo islaamaysaa mise diinteeday haysanaysaa marka intaadan guursanin ka hor baan ka hadlayaa wallahi ma aqaan inay islaamada in kale ma aqaan laakiin hadda maxay haystaa diinta budiiska waa gartay waa gartay marka laba xaalaba waa u kala qaadeynaa kow waxa ay tahay gabadhu inay soo islaamto intaa ka hor iyo inaynan soo islaamin haddii gabadhu ay hadda soo islaamto oo diinta islaamka ay qaadato oo muqtanicna ay ku tahay maaha adiga dartaa inay usoo islaamayso laakiin waa inay ku qanacda diinta islaamka hadday soo islaamto waa banaan tahay waa guursan karaysaa walaasha muslimad ah weeyaan haddii laakiin ay leedahay diintaydaan haysanayaa ma banaana islaam laguguma guurin karayo maxaa yeelay ilaahay wuxuu noo baneeyey oo keliya inaad guursatid gabar muslimad ah ama inaad guursatid qolooyinka yuhuudda ah ama masiixiyiinta inaad guursatid shardiga iyaga ku xiranna waxa ay tahay waa inay tahay qof cafiifad ah dhowrsan aan zaaniyad ahayn aanan saaxiib lahayn gabar bikra ah oo noocaas ah ahlulkitaab haddaad guursanaysid waa ku banaan tahay laakiin qof buuda ah ama diin kalaba haysta ayi diin labadaa diinood ka soo haray nooma banaana islaam haddaan nahay marka sidaa darteeda ma banaana waxaan ku dhihi lahaa arrintaa ma banaana haddii aada naseexa iga qaadanaysidna waxa ay tahay ilaahay subxaana watacaala bari marka hore in uu ku waafajiyo qof khayr qabta oo muslimad ah maxaa yeelay waxa meesha ka faracmaya waa ubadkaagii adigu waa dhiman kartaa beri laakiin waxaad ogaataa gabadhaas ubadkaaga xaggey la aadaysaa beri marka adiga dhimatid dabcan lama aadayso dadkaagii iyo soomaaliya ee waxay la aadayso waa dadka ay taqaano oo aabaheed iyo hooyadeed aabaheed iyo hooyadeedna waa dadka aada sheegtay caruurtaadi xaggey kusoo barbaarayaan marka caamir ku maqlaya haye xaggey kusoo barbaarayaan caruurtaadii marka طبعاً. ka dhaafayna samaan khayr badan allah ku siiya ilahayna ha kuugu bedelo wax saalix ah waxaan ilaahay ka nacam laakiin haddii tahay kristaan waa la guursan karo soo ma masiixiga masiixi hadday tahay shardigaas aan ku xirnayna ilaahay uu ku xiray me annaga kumaanan xirine waa banaan tahay jaa-is weeyaan insha allah oo ah gabar cafiifad ah saaxiib aanan lahayn isla markaana bikra ah dhib male insha allah wallahu aclam bisawaab hadday drop tahay hadday qof soo guursaday tahay cafiif ay tahay guur hore usoo maray masiixi ahaada hadduu doono laakiin ay tahay qof aan rag kale arkin waxaa la diidan yahay waxay tahay qolooyinkan saaxiibada iska leh boyfriend iska leh waxay doonto samaynaysaa maya islaamku nadiif weeyaan ansaabta waa la ilaaliyey ilmaha kaa farcamaya ilaahay waa ilaaliyey subxaana wa tacaala aad baa loo sugay marka waxaa la diidan yahay qof 100 saaxiib leh haddaad adiga guursatid beri haddaad isku xanaaqdaanna saaxiibkeeday aadaysaa sawa sheekh taasaa la diidan yahay marka ilaahay subxaana watacaala waxaan kaaga baryaynaa adiga iyo kuwa kula midka ah ee dhalinyarada aanan guursanin rag iyo dumarba leh inuu ilaahay subxaana watacaala mid walba siiyo tii qalbigiisa ama qalbigeeda uu ku degi lahaa insha allah ilaahayna subxaana watacaala dad muslimiin oo wanaagsan ama ummadda soomaaliyeed ha noqoto ama guud ahaan ummadda islaamka inuu ilahay idinku arsuqo subxaana watacaala amiin amiin asalaam khayr allah ku siiyo sheekh baaraka allahu fiik waxay ka mid tahay quruxda islaamka inuusan islaamku waxba ka tegin oo xataa ilmaha aan dhalin islaamku uu ugu talagalay dariiq iyo nidaam ay maraan ilaahay diintaa nagu karaameeyey ana mahad iskale baaraka allahu fiik caamir khayr allah ku siiyo been wanaagsan faluu ku yiri sheekhu ilaahay dembigaaga ha dhaafo inaad ka qaadateena waa wax lagu farxo weeye inaad walaal soomaaliyeed oo muslina oo ilaahay jecel aad tahay bayna daliil u tahay baaraka allahu fiik waxgaag khad kaloo ku xigay asalaamu calaykum وعليكم السلام soo dhowo walaalkii magaca وعبد الله محمود عرب وانكسر وعيا سويدن أديك يا شيخ يا وين السلام جزاكم الله خير soo dhowo cabdallah لبس سؤال قبل إن شاء الله aha سؤال شكو بواحد تاعي waxay tahay diinta islaamka horta markii rasuulku salawaatu ullahi wasalaamu calayhi uu bilaabay inuu la soo saaro dabcan diintu rasuulku dadku uu yeeray dad diida waa jireen dadna waa qaateen dadkii diiday dabcan rasuulku waa jihaad oo la galay marka maantay waxaa jira
qolooyin meelo badan ka dagaalama oo Soomaaliya kamid tahay oo Shiishaan kamid tahay oo Cabdullaahi waxaan rabaa hadalkaaga inaan wax ka fahmo markaad leedahay rasuulku wuu la dagaalamay ma waxaad ula jeedaa islaamka dadka lagu khasbay mise waxaad u jeedaa diinta ma soo gelinay yiraahdeen dabeedna dagaal baa lagu qaaday oo xilli soo waa goorma inaad yara jilcisida meesha u baahanahay waxaa ula jeedaa jihaadkii rasuulku uu soo maray ula jeedaa sheekh Bashiir hadal وجزاك الله خيرا لكن قورمي أهيد قورت جهاد كالنبي وقاضي صلوات الله والسلام عليه ما انتو مكة كسقنا بعد شيء جيسا بس انتو مدينة كسقنا انتم مدينة كسقنا جزاك الله خيرا سيوا ذا مركة ورك marka waxaan ula jeedaa macnaha hadalkayga su'aashii waxaan ula jeedaa hadda waxaa jira firqooyin ama kooxo macnaha jihaad dagaal lagu sheegay jihaad wada ama Soomaaliya ama meelo badan adduunka oo firqooyin badan ha ahaato marka jihaadkaas ay wadaan ma la dhihi karaa waa diin la fidinayo oo macnaha dadkii ay ugu yeerayaan diinta islaamka mise waxaa la dhihi karaa way ka fogeynayaan oo diinta islaamka ay dadka nacsiinayaan Cabdullaahi Carab waa mahadsantahay su-aashii labaad aan ku darsa cabdixafido su-aashii labaad qof muslima lacag aan ka shaqeeyey bal for example aniga haddaan naftayga ka hadlo su-aashaas lacag aan ka shaqeeyey muqallasnimo ma ka soo xaji karaa maxaa ula jeedaa mukhallasnimada dad aan soo wadi oo soo taariibshay وهاجاك شيخ بشير يا عبد الله وحن جعلها حدي آد مارت إن أذكر هالنقطتين سؤالش أنا عاو نحكي إنه حيل الموضوع أن آد بيقول فوق تاي وقنا دون تاي لكن تالي هو أنا كنت حكي لنا خير الله كسي عبد الله ما فهمت هذا شيخ سؤالش سهراء هيد دتك إسلام كقاطي ما هنا دتك كل إسلام كديدي ولا رجع هذه بسم الله نعم جعلنا هي دتك ما أنت جوجا سين دتك بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وبعد نعم رسولك عليه الصلاة والسلام لبا حياته صومر واتين صوت الماني حياة والنبي عليه الصلاة والسلام ضعيفها تبريرا أي أهيد وحو البابا إنه كرع عدن كوناكسن هي حياة النبي عليه الصلاة والسلام ودولة نقضي وهلي أود يا وحو البابا سواء ديني هرنا كتجين هذا دين تفيدنا يا النبي عليه الصلاة والسلام مدعين أنتو قالوا دجال يسقى قاضو إنه مركب بابي لكن وحكوه الرينجر الرسالة سلمان الفارسي بكور رمية غير الصحابة كور رمية النبي عليه الصلاة والسلام حتى وحو أمركم بحنجري صلوات الله والسلام عليه إن يراهضو قل هذا دجال كوكو قاضيسان أنت إذا دجال كوكو قاضين بالهرتو السوق آذان إن كم قشاني إنكله سهم بدر جري أبدا ما بنانا نعم وحال حيرنا يا أنت بل إن له روح لا إله إلا الله نحيا ماشي إني تشوفه ها أما ما أنت واحد دعية ولا بقيبوت قيبنا وإنده كرنا وحق أو ضد مسلمين ولا الدلمية يوحي لميت قيبنا لكن وسيدة ودن كأنه وكلاء أذن قرنا إن قفك للدلي وحلو قد دلي أذن قرنا إن قفك دين تأوفيدنا يا محيتها هدي مساجد دي بدتك لو قرحنا هدي قفك الصلاة تكن يا حبض لو قلنا دين تلفيدنا يا محيتها مرك دين تبدتك لقى عيرنا يا معناها هدانا تكن المساجد أنا تقول لي يدلي معي لكن هدان المساجد تقول يدلي يا معنى هذا dadkii muslimiinta ah masaajidada jooga wadaadadii baa la dhameynaya cid walba la dhameynaya marka taasi ma aha diin fidin ee waa diinta oo dadka laga cayriyo diinta oo dadka laga saaro weeyaan ama ogow ama ha ogaanin laakiin macnuhu ka dambeeya sidaas weeyaan marka ma dhihi karayna taasoo kale waa jihaad bal waa jihaad diinta ilaahay lagu soo qaaday subxaanahu wa tacaala wallahu aclam sheekh bashiir waxaad sheegtay xilligii rasuulka sal alla alay wasalam uu xoogsaday oo dowlad uu noqday dagaalaa la qaadi jiray mararka qaarkood culimada Soomaalida waxay noo sheegtaa markii axaadiista dadka uu sheegayso xataa marka dagaal la qaado in maatada caruurta dadka waaweyn dhirta xayawaanka meelaha lagu cibaado in aan maaragtay la taabanin asagoo dagaal ku jiro haddana raxmadii iyo wanaagii uusan ka tagaynin aad bay adag labadaas in balance loo sameeyo marka maanta adduunka aan ku noolnahay aanu fiirino marka muxuu kaga duwanaa saraakiisha kale dagaalka hogaaminaysa nabigu calayhi salaatu wasalaam amar buu siin jiray saxaabadiisa markuu xitaa dagaal u dirayo awalan wuxuu u dardaarmi jiray taqwada ilaahi subxaana wa tacaala ninka amiirka ee hogaaminaya iyo inta kale intaba amar buuna siin jiro wuxuu ku oran jiray qof kaniisadiisii ku jira ama sawmacadiisii ku jira yahuudi ah ama kirishtan ah yaan la taabanin
qof waayeel ayaan la dilin, qof dumar ah in la dilo ma banaana shareecada islaamka, ilmo yar in la dilo ma banaana. qofka ragga ah xitaa waad garanaysaa nabigu calayhi salaatu wasalaam markuu maka ku laabtay wuxuu odhanayaa man dakhala bayta abi sufyaan fahuwa aamin waman dakhala bayta fahuwa aamin. gurigaaga haddaad gashood xerato lagugu soo geli maayo, maxaa yeelay qof nabadoon ah baa tahay. laakiin waxa lala dagaalamaya keliya waxay ahayd qofka markaa xabadda kugu ridaya oo keliya, waana raxma dhinaca kale, maxaa yeelay ummadda intaa kale oo dhan in faraha laga qaado aan la taabanin, waana sida islaamku in lagu soo gaaray. baraka allahu fiika. maanta waxaanu ognahay saraakiisha ciidamada dagaalka hogaamisa intay ummad dhan ku qarxiyaan madaafiic oo 500 oo qof oo aroos joogta la baabi'iyo in la yiraahdo collateral damage weeyaan isku bixis. laakiin maxamed rasuulullah sidaas ma uusan yeeri jirin sallallahu alayhi wasallam, hayr ilaahi baa raxmad u soo diray. ka baro dadka kale insha Allah taala. khad kale ku xiga. Assalaamu alaykum waraxmatullah. Assalaamu alaykum. Alaykum salaam. soo dhawaad magaca magacayga muslima lahaa. muslimo magac wanaagsan soo dhawow. waa dhawahay. xaaja casha sheekhana weydiisid. waxaan rabaa inaan weydiiyo sheekada shacbawey muxuu waxaa shaki iga jiraa ku jirta jibiga wuxuu dhahay tag meelaha jim tag iyo meelaha dabaasha. waxaan helay meel naaga ah laakiin naagihii muslim ma wada ahaan, ma la dabaalo meesha biyaha oo masaajada ma la geli karaa anoo dalkeyga qabo. muslima khayr allah ku siiyo. waxay u egtahay barnaamijkii inaadan la soconin, laakiin kii maalintii hore halkan ka baxay su-aalihii quruxda badnaa oo shiikha la weydiiyey maxamed xaaji cagmar iga daadihinayay inay qeyb ka tahay. maadaama su-aashaada muhiim ay tahay insha allahu tacaala waxaan jeclahay marka ugu dambeeya inaan su-aasha kusoo gabagabayno, laakiin mawduuca iminka aadan naga jeerin. waa mahadsanta khayr allah ku siiyo. hagaag taasi waxay ahayd muslima. khad kale oo ku xiga. asalaamu calaykum waraxmatullah. halaawo halaawo halo sheekh t v-ga iska baktiyo soo dhawow magaca. walaale asalaamu calaykum. aad baan kuu salaamaya cabdixaafid iyo bashiir sheekh bashiir. walaale maxamuud baa la yidhaahdaa. maxamuud t v-ga iska bakti please. okay waan baktinaya. thank you. hay waad imaqlaysaa soo maha walaale? si wacan. okay marka walaale one second waaba ka baxay. walaale waxaan aad baan u salaamayaa sheekh bashiir shiil iyo sheekh cabdixaafid labadiinaba. waxaan weydiin lahaa sheekha nin baan shalayto la kulmay, marka waxa uu ii sheegay inay dhibaato ay haysato. marka dhibaatada waxaa solution uu u arkay, wuxuu u tagay nin sheekha. ninkii sheekha ahaa wuxuu siiyey wuuba ku xidhan yahay oo mar kasta wuu u tagaa. marka laakiin wuxuu siiyey dariiqu kaga bixi karo. marka qoraaladii iyo sidii uu yiri u isticmaal baan kasoo qaatay. marka waxaa ku qoran macnaha hay-atal dikri qalbi, marka waa ihdaa tawaab. marka wuxuu leeyahay shuruudaha samee 3 goor waxaa akhri, 4 goorna aamus ku akhri. sidaa samee. qalbigaaga mucallaqatu mashaayikh naqshbadiya waxaad samaysaa xusuuso waxaa qabriga muraabid ku noqo. markaa sheekadii baan hadda hayaa waraaqihii maadaama aan fursad u helay sheekh bashiir shiilna. marka maxamuud mawduuca aan ka hadlayno iyo qolyahaas xagee iska galaan? deniyahow anigu mawduucaba lama socona markaan sheekh bashiir shiil arkay. khayr allah ku siiyo. khayr allah ku siiyo. ninkan aan arkay aan isiri war jaaniska isla eego ninkan waraaqda haddii ay sawaab tahayna u sheeg, haddii kalena ka tuur. khayr allah ku siiyo. dhamayso kaama dhexgelina soo koob, laakiin waa kuu dabamarinayna insha allahu tacaala. waxaana jecelahay qof kale fadlan inuusan soo wicin oo dariiq furma aysan noqonin oo su-aal topiga ka duwan aan nala weydiinin. marka dhamayso maxamuud. walaale marka muhiimadu waxa weeye ninkan description baa la siiyay, dariiqaasaa la yidhi ayaad xal ku gaari kartaa. marka ninka wuu qaatay already, hadda mudduu ku jira waxan. marka dee anigu cilmi ma lihi, ma garan karo. wuxuu leeyahay waxaad akhridaa example faatixada akhri, kadibna adigoo aamusan qalbiga waxaa ka akhri. waa wax fara badan oo qaarba si loo akhrinayo. marka dariiqada noocaasa wuxuu leeyahay mucallaqa alculamaa alnaqshabandiya waa inay qalbigaagu mucallaq ku noqotaa.
waa inaad mucallaq ku tahay rasuulka iyo saxaabadii waana inaad muraabid qalbiga ku tahay ee qabriga ku tahay qabriga marka waa arrimahaas dee waa wax dabcan waafaqsan shareecadii marka waxaan filayaa inuu ifahmay sheekh bashiir shiil aadna waan idin salaamaya walaal khayr allah ku siiyo walaalkay thank you fursad baan ku siin marka u dambaysa haddii aan la yiraahdo insha allahu tacaala mawduuc dhan baanu kusoo qaadan doonaa haddii ilaahay yidhaahdo shiikhuna fursad uu noo helo aanu ku fiirin doono shirkiga iyo qeybihiisa kala duwan haata xabaalo la weydiista caruur ama roob la weydiisto ama oday xaaskiisiiba waa hore nin kala guursaday in la baryo la yidhaahdo awlaadna si ama roob noo keen ama aleel ama foox ama qiiq ama tusbax iyo waxa la midka ah insha allahu tacaala maalin kale aanu foodo dalaynaa now waxaanu ku noqonaynaa barnaamijkeenii insha allahu tacaala aanu ku guda jirna qof kale oo ku xigay asalaamu calaykum hallo soo dhawo walaal kor yara hadal oo magaca وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته soo dhawo magaca مريم واي لندن كصواعي hay maryan soo dhawo tv-ga iska bakti fadlan ها السلام عليكم وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته شيخة إيه أديك بعد حفيظ وسلامتين kaa qaadnay soo dhawo waxaan rabay barnaamijkan la soconay mawduucan waana dhaafay laakiin sheekh hadda markuu wiilkii arooska bixi rabay uu u jawaabayay kelmad uu ka dhawaajiyaan rabaa inaan si fiican weydiiyo waxaa waaye wuxuu yidhi hadday gabadha ahlo kitaab tahay waa la aroosi karaa dad badan oo ka murmaayana waa arkay waxaa rabaa sheekh inaan weydiiyo kitaabka Fatikaanka yaallo waxaa ku qoran il Padre il Figlio e Spirito Santo kitaab ay waxaas ku qoran yihiin ma la dhihi karaa maana fahmin waxaa talyaaniga ku qoran maxaa loola jeedaa macnaha waxaa la yidhaa kitaabkooda waxaa ku qoran aabbaha iyo wiilkiisa oo ciise ah waa gartay iyo muxuu ahaaye naftii barakeysneed macnaha Spirito Santo marka kitaab waxaas ku qoran waa shirki ah oo ilaahay saddex u qaybiyay ma la dhihi karaa waa ahlu kitaab yahuudana xaalkooda kaba sii daran معناها إلهي سو مدهن إن الدين عند الله الإسلام. سؤال هذا في عوي مريم خير الله كسي سؤال في عوي وحنا كفر أحسن آيات آخر ذي سورة صدق هذا آيات السجالة تبنات كجرت آل عمران شيخ إن الدين عند الله الإسلام. الدين عند الله الإسلام كتابك بايبل كوحق قرن سي شاكتي استليانكم ما قرني لكن هذا عربي جينا قرن سي صومالي كان هذا كان إنجليزي قال واحد in the name of the Father the Son and the Holy Ghost these three are not three but one. شركة ماشي وصل ريوي قبل يوحس آمن سنة سيداب وقرصة صحوية بسم الله ومسألة صحوية يعني اختلاف عند الصحابة حتى لكن سؤال جوابتي إذا وحيتها هي إلهي سبحانه وتعالى مركو كهل لي وحيري لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاث نعم إلهي بأنه شيء عقيدة ما أنت تعالى إني تعالى واقي النبي عليه الصلاة والسلام يكهر بإني تعالى طبعا هذا صاصو يتهي إلهي سبحانه وتعالى ونو حلال عليه وحل دورة يا وحي تهي أصل ككتاب كأي هيستين حيل الكتاب كان وحا قرآن وحبذا وباطلا يجا يكو سميا وحا كله قرآن شيء حق أهنا وقرآن لبدي بمركة وحويان ويكل ميان وحل دورة يا حرمة الله سينا يا وحي تهي كتاب كما دام النبي اللي هبا بدلان هدي دونان حرمة هالكاسي كسو جيته لكن ما أهم أنت وحي آمنسين والشرك ويان شك مله حي الله القرآن كي نوب الشيخ سبحانه وتعالى كفر الذين قالوا إن الله ثالث الثلاث لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين ولا جمعية مشركين تي كون وحى الله قصصوا على كتاب بلسية وإلا ونفس الشيء ويان مشركين ويهين كافرين ويهين هذا وحى الله قول دورة يا وحي تهي كتاب كإلهي والنبي قسيه عليه الصلاة والسلام عيسى هذا أما موسى هذا عليهما وعلى نبينا الصلاة والسلام حرمة هالكاسي كسعتها لكن معها إيجا وحي اعتقاسين إنه كفرية هي وواضح ويان مركو وحل اللي هي دتكي النبي قال الروميي ولو هبير هذان هدي دونا ثالث ثلاث وعدد حرمة له ويان والذين بنيه لكن وأين شرطك عفيف كأيتهاي وأين نهين قف صاحبة لي أما وحلا مذاله أما كون بوذها كتاب إلهي مسينا سبحانه وتعالى يوحي كسهر إيجا ودن مركو كوا أصلا لما دوريه حيلي وديما أن إلهي سبحانه وتعالى سود جيني بني آدم سميستي حرمة ما لمركيو والله أعلم. حقاك مريم خير الله كسي وكاك ما علينا كيف قال شو هذا البرنامج الشيخ بارك الله فيك. السلام عليكم. السلام عليكم. وحقاك قفك الله كحي السلام عليكم. هلاو. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سولو والمجاعة.
cabdirasaaq baa la yidhaha cabdixaafid adiga sheekha waa idin salaamay waa wax kaloo ma soo hadline waa may maqashaa si fiican cabdirasaaq marar badan baan waxaan maqlay adoo teleefon lagu soo wacayo leh mawduuca aan ka hadlayno noocaas maaha hadda mawduuci meesha ugama jeedno ma garan karno teleefonkii baan soo dirayna marka mawduuci maaha marka barnaamij aad u qurux badan baa wadada khayr allah ku siiyo mawduuca hoos ku qor si aan u ogaano meesha uu marayo haddii kale qof kasta wuxuu maraya barnaamijkii su-aalaha aad iyo aad baan kuu fahmay cabdirasaaq waana runtaa weeye gaar ahaan markay culummadu soo fadhiisato su-aalihi jawaabay dadku jecel yihiin ama u barteen sidaa awgeed qofkii dib kala qabsaday waa saa a sheegaysid in intaasaan usoo wacta midda kale haddii mawduuca hadda ku jirta ma garanayo sheikha waxaan dhihi lahaa keliya maadaama maalinba sheikh baan aragnaa soo fadhiista su-aalo dadku soo weydiinayaan aragnaa isku su-aalihii waaye midba markaas hadda waxaa dhici karta hal su-aal for example midda laleeyahay islaanteedu wasida miga jebisaa sheikha wuxuu leeyahay kaama jebiso mid kale wuxuu leeyahay waa kaa jebisaa mid wuxuu leeyahay maxaa niyeysatay inay kaa jebiso waa sidaas qofkii jaahil oo aan wax badan aqoon ee saddexdaas sheekh dhageystay waxaa xaalku waa ku adkaana marka soo mar wanaagsanaa lahayn inaad waadiin laftarkiina aada is og tihiin in dadka ay jiri karaan wax fahamka ummadda sida wax u fahmaan sida wax loogu sheego in xogaar dadku waa inuu cilmiga la wada leeyahaan sida wax loo sheegi lahaa dadka loo gaarsiin lahaa lagu kala fiican yahay cabdirasaaq ra'yigaaga koowaad oo in hoos mawduuca lagu soo qoro waa mid dahaba insha allahu tacaala aanu jeclan aan tixgelin hadda kadib kan kale mawduuca kuma jiro kan kale mawduuca kuma jiro dabcan laakiin dhinaca kale haddaan u fiirino khasab waxaa ah oo daruuri ah culamadu inay kulligood meel walba adduunka joogaan is ogaadaan inay adag tahay adigu waa garan kartaa laakiin khasab laakiin waxaa ah aasaasku inuu noqdo qur-aanka iyo sunnada soo maha laakiin ila soco saaxib marka haddii aasaaska iyo sunnadu ay asal yihiin diinta qur-aanka iyo sunnadu hadday asal yihiin shiikhii kuu sheega sidii nabiga iga soo degtay lagugu tafsiiro waxa weeyaan way hagaagaysaa insha allahu tacala khayr allah kusiiya baarak allahu fiika cabdirasaaq ra'yigaa inoo fiican yahay waa hagaag wax yar baa barnaamijkan ka haray aan boobsiin haddii la yahdo dhowr qof salaamu calaykum salaamu calaykum sheekh calaykum salam raxmatullah soo dhawo sheekh soo dhawo sheekh salaamu calaykum soo dhawo magaca magacaygu waxaa la yidhaha maxamed cusmaan maxamed xaggee joogtaa waxaan jooga cabdifataax oo birmingham waxaan london nin waxaa la yidhaha maxamed cusmaan sheekh cali ay maxamed cusmaan su-aashaadu waa maxay su-aashaydu waxay tahay inaad koos ka fiirsan dartid waxaa waaye su-aashaydu waxay tahay inaan idin salaamayo labadiina salaam allahi calayk raxmatullah leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullah wacalaykum assalaam waraxmat ullahi wabarakaatu diinteyda oo aan jeclahay ayaad ka hadlooysiin ilaahay maaragtay kuwa ku sugan allah idinka dhigo anagana allah naga dhigo aamin 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 soomaalidana waxa waaye waxaan u sheegayaa inay iscafiyaan jazaaka allahu khayran waxaan iska hay oday aan la wareysan laakiin chines ayaan waxaan leeyahay soomaali ha la iscafiyo hala gaadho seen wax u dhisanaa oo horekac u gaarnaa jazaaka allahu khayran aan diinteena u dhisanaa dadnimadena u dhisanaa oolaadena u dhisnaa wixii qaldana u toosinaa raalliga naqda jazaaka allah khayran barnaamijka waxaan ku jirin raalli baan kaa nahay maxamed cusmaan khayr allah ku siiya oday soomaaliyeed wanaag iyo khayr iyo horumar ah jecel waxaana ku faraxsanahay kaagana mahadcelinaya ilaahayna ugu mahadcelinaynaa inaad tahay muwaadin diintiisa jecel noolow insha allah maxamed cusmaan waa haga khad kaloo ku xigay asalaamu calaykum hallo soo dhawo walaal codkaaga kor yara qaado waa magaca fadlan t v-ga iska bakti soo dhawow waa maxay su-aashaadu musalmay mawduucu wuxuu ku saabsan yahay risaaladan say ilaahay uu usoo diray muhiimaday leedahay iyo rasuulka raxmadiisii sala allahu alay slam iyo muslimiinta maanta adduunka joogaa inay qaadaan risaaladaas oo ummadaha kale oo aanu la deganahay iyo generationa soo socdaba aan u gudbino maxaad su-aal oo mawduuca ku saabsan oo qabtaa soo ducay insha allah khayr allah ku siiyo umu salma mahadsanid waa hagaag qof kaloo ku xigay asalaamu calaykum hallo hello soo dhawaada magaca magacaygu maxamed calaykum salaam raxma maxamed ha maxamed xaggee joogtaa london waa maxay su-aashaada dad mawduuca la socotay su-aasha raqabo waxay tahay mataqaanaa sheekha raba inuu
maxamed ها واكم مغلى ما مغشاه si fiican aan ku maqla cami isdaba raaci insha allah waxaan rabaa sheekha inaan weydiiyo mataqaanaa mawduuc haddaay wiil ka hadlay mataqaanaa naag hindi inuu guursan karo waa gartay inuu guursado naag yahuudi ah oo kitaabiya sidee ku guursan karaa because waxaa maqlay yahuudi mar walba in erka lacnada igu soo dhacayso sidee ku guursan karaa marka qof erka lacnad ilaahay uga soo ridaayo midda koowaad midda labaad qof aabaheed lacala mataqaanaa soomaaliya jiro oo anigana intaa joogo ma guursan karaa aabaheeda ogeyn hagaag maxamed waa mahadsan tahay waxaan jecelahay su-aashaadaas labaad inaysan mawduuca qusaynin laakiin barnaamijyadeena kale insha allahu tacaala kusoo qaadan doonaa markaad insha allahu tacaala ka fikirta adigo gabadhaada in la meher xado oo nin kala guursado haddaad jeclaan lahayd iyo in kale dabadeedna jawaabta waa haysaa sheekh arrinta yuhuudda iyo nasaarada siyaabo kala duwan baa uga jawaabtay cidda la guursanayay waxa asalka uu yahay marka hal qof aan fursad siino dabadeedna muslimo gabadhii jiimka baanu ku noqon doonaa haddii lahayd inankii inaanu soo gabagabeynayna qofka u dambeeya khadka taleefonka fursad aa u helay asalaamu calaykum hallo السلام عليكم. عليكم السلام. عليكم السلام ورحمة الله. سو دhow walaalow 30 seconds insha Allah magacaada. أحمد برمهام jooga. soo dhow Ahmed 30 seconds maxaa oranaya newska foodan ugu haya. walaal waxaan rabaa sheekh inuu weydiiyo horta waa mahad celinaya marka hore waan salaamayaa sheekheena Sheekh Bashiir. barakallahu fiik. jazakallahu khayran. adiga Cabdixafiidna sidoo kale waxaan rabaa walaal inuu weydiiyo axad iyo sabtida waxay noo soo qaraan albaabada nimankan Bible-ka wareejiya. annagana waxaan markaasaan waxaan kitaabada ingiriiska ayaa guriga yaalo waan u dhiibaa ayagana kitaaban ka qaadaa kitaabkaas aan ka qaadayo muxuu dhib u leeyahay markiina anigana iraad bal adiga kaada idib waan akhrisana adigana kan hore soo akhrisa isku keen mana igu soo laabtaan waa hagaag khayr Allah ku siiyo Ahmed khayr Allah ku siiyo waxaan jecelahay adiga gaar ahaan dadka noocaas oo kale ah haddii aad emailka aid.hafida.tv universal ciwaankaaga igu soo qortid insha Allah taala waxaan kuu soo dirayaa hub fara badan oo haddii aad ku shaqo tagtid insha allahu tacaala cidna aan dhiig ka keenaynin ayaguna aysan albaabkaaga dambe dib dambe usoo istaagaynin ballankiinuna masaajidka u noqdo haddii ilaahay yidhaahdo Sheekh Bashiir jiimkii arrintii jiimka maxaa ka leedahay bismillah ma jiimka waxay tiri jiimka maahna swimmingka waxay tiri barnaamijkii hore halkan ka sii daysay waxay dhageysatay meeshaan lagu wada dabaalanaya maaragtay in la raadsado dumarku meel gooniya laakiin dumarka ku dabaalanaya laftigooda baa qaarkood aan muslim ahayn marka meesha waxaa ka muuqata gabadhan muslimadda waxa ay arkayso oo jirkeega ka arkaysa gabadha cadaanka oo muslimadda aan ahayn ma arki kartaa oo dabaalanaysa iyadana bismillah waxaan tilmaanay habeenka gabadha gaasha ah cawrada gabadha muslimadda ma u banaantay inay aragto maya haylo waa gaal gabadhan waa gabar muslimad ah ilaahay bay rumaysan tahay subxaana wa tacaala waa ka sarreysaa ma banaana laakiin waxaa aan arkay in badan gabdhaha muslimaadka ah ee sidaasoo kale doonaya way 10 15 20 intay isugu yimaadaan way kiraystaan meel wayna samaysan karayaan taasaa uga wanaagsan marka inta ay la dhex dabaalan lahayd qof aan ilaahayna rumaysanayn subxaana wa tacaala laga yaabo in sawiro laga qaato laga yaabo inay waxyaabo badan dhacaan cawradeedii iyadoo banaanka ay taaliya wixii la mid waadna taqaanaa kulli hal meel baa lagu wada qabaysanaya iyadoo ay qaawan yihiin kumana banaana indhahaga inay waxaasoo kale arkaan marka sidaa darteeda ma banaana dardaarankaaga ugu dambeeya sheekh allah ku siiya bismillah dardaarankayga ugu dambeeya waxa weeyaan maadaama laba dhinacba waxaan jeclahay inaan awalan u dardaarmo ilaahay taqwadiisa subxaana wa tacaala kadibna aan ishaaro laba shay oo ah xayaatadeenna dhulkan qarbiga aanu ku noolnahay waxaanu nahay sufaraa oo macnaheedu ay tahay safiir baan nahay cabiraya islaamkii islaamka waxaad ka maalaysid aad ka tarjumaysid nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam fiiri in adigana aad khalad samaysid macnaheedu waxa ay tahay nebi moxamedna waa khaldanaa salawaatu ullahi wasalaamu caleyh in aad adigu ku dhacdid khalad macnaheedu waxay tahay islaamkuna waa khaldan yahay sidaas weeye islaamka oo idil baa hadhow la mathalayaa marka gabadha xijaaban iyo wiilka soomaaliyeed ama ninka soomaaliyeed waxaan dhihi lahaa ka fiirso intaadan waxba samaynin waxaad xambaarsan tahay dhabarkaaga ee aad sawir u tahay waa islaamka weeyaan maxamed baa lagu yiraahdaa ama faatima lagu yiraahdaa islaamkaad xambaarsan tahay isdhowr si fiican isu dhowr ta labaad waxa weeyaan in aynu wax baranno maxaa yeelay jahligu waa cadow jahligu qofka wuxuu gaarsiiyaa inuu ilaahay subxaana wa tacaala diintiisii si xun oga tarjumo marka waana tan nabiga inoo sheegay calayhi salaatu wasalaam oo ah fasu'iluu faaftow bigayri cilmin fadalluu waadalluu
waxaynu kaga gudbi karaynaa waa cilmi saalix ah ama cilmi naafic ah iyo camal saalix ah hadigii nabiga waynu qaadano salawaatu ullahi wasalaamu caleyh wasali allahuma waslama calaa nabiyina muxamedi wacala aalihi wasaxbihi ajmaciin بارك الله فيك شيخ بشير إلهي سبحانه وتعالى الله يبارك فيك جزاك الله خيرا في ميزان الحسنات كواهجاج فرصمده waa عبد الرشيد رشكه iyo waliba علي ناجي محمد سعيد الصحافه meesha ka maqan أحمد داهر محمد حاج عقمه dhiga ayaa qayb weyn ka ah waxaan kaloo u mahad celinaynaa hadii la yiraahdo Cabdalla Madhir oo qayb weyn barnaamijkan ka ahaa laantiisba ay dif kala ahaan lahayd inuu